maanka iyo maskaxdeena aadame ee yar waxay noo sheegayaan in marka aynu qof abaalmarinayno aynu siino wixii uu sameeyey ee uu abaalmarinta ku helay wax u dhigma se marka uu arrinku alle subxaanahu watacaala la xidho gebi ahaanba waa uu ka gedisan yahay fahankaas yar ee kooban sadaqada inta uu qofku bixiyo alle ajar ahaan kuma siiyo ee wuu u laban laabaa isaga oo alle arrinkaas ka hadlaya ayuu yidhi yaa alle amaah wanaagsan amaahinaya oo uu alle labanlaab badan u labanlaabaa alle muu odhan yaa sadaqadaysanaya ee waxa uu yidhi yaa alle amaahinaya amaah wanaagsan ma aha inuu alle u baahan yahay waxa ay addoomihiisu haystaan ee maankooda yar ayaa waxa uu garanayaa in ay amaahdu tahay qof wax kaa qaatay oo muddo kadibna kuu soo celiyey wixii uu kaa qaatay kadibna waxa uu alle subxaanahu watacaala ku matelayaa in ay sadaqaduna sidaas oo kale tahay oo wixii aad alle dartii u bixisay uu yahay wax isaga agtiisa kaaga maqan hadhowna uu janno iyo raalli ahaanshihiisa kuugu bedelayo maalin maalmaha ka mid ah ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada waaniyey aayaddii aynu soo sheegnay ayaanu ku waaniyey yaa alle amaah wanaagsan amaahinaya kadibna saxaabi abidaxdaax la dhaho ayaa yidhi ma alle ayaa waxna amaahinaya markaas ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u sharaxay waxa ay amaahda alle la macno tahay oo ah inuu alle subxaanahu watacaala qofka maanta alle dartii wax u bixiya berri ugu bedelayo janno waarta abudaxdaax radia allaahu canhu waxa uu nebiga ugu jawaabay rasuulkii allow waxa aan leeyahay beertaas 600 ee geetimirid ay ku yaallaan ee alle dartii baan u bixiyey ciddii aad doonta si nebiguna waa uu ka guddoomay markii uu masjidkii ka baxay ayuu toos u abbaaray beertii oo ay xaaskiisii iyo ilmo yar oo u dhalay joogaan isagoo aan soo gaadhin ayuu gabadhii la hadlay markaasuu ku yidhi soo baxa ama ka soo baxa beerta dar alle ayaan inoogu bixiyey ilmo yar oo uu dhalay ayaa midh timir ah afka geliyey markii uu sidhi ka qabana la cararay isna inta uu ka daba cararay oo uu afka dhowr farood ka geliyey ayuu ka soo saaray midhkii timirta ahaa gabadhii inta ay xanaaqday ayay ku tidhi maxaad ilmaha waxaas ugu samaynaysaa abudaxdaax radia allaahu canhu waxa uu ugu jawaabay xaaskiisii in aynu midhkaas timirta ah u dayno ilmaheenna yar oo aakhiro laynoo qabsado ilaan waynu bixinnay iyo in aynu ka qaadno innagoo waa dhibsanayna maadaama uu ilmaheennii aynu jeclayn yahay si aakhira aan waxba laynoo qabsan waa iyaba markaas ayay garwaaqsatay sidii ayayna kaga baxeen beertii saaxiib sadaqadu waa sir uu alle siiyey awood xaddhaaf ah xanuun ayuu alle kaaga daweeyaa belada ayuu kaaga duwaa culayska ku haysta ayuu kaaga kor qaadaa isha dadka ayuu kaaga jeediyaa ujeed aad lahayd ayuu alle subxaanahu watacaala kuugu fudaydiyaa waxaa jira dhacdooyin badan oo laga diiwaangeliyey awoodda sadaqada iyo barakadeeda ee aynu xalqadda 6 ku soo qaadanno si aanu muuqaalkani inoogu dheeraan insha allah